سورة الفاتحة مركينو إلهي سوتاقنو قفكو يري على المذهب الشافعي وحلقيا باين وأخرية مالنتي تضبي طبنشر قفكو ير تضبي طبن رقعدود فرال كاتو كذا تضبي طبنشر بأخرية تضبي طبن كاغور مركاد إلهي سهر تاكتو هل وحد ويديستا الصورة كجرا إلهي وحينا براي مركز هو مهمسن إنه ربي أنت إنه سهر تاجنا إنه ويديسنا وما أنت إنه كعل علينا وإهدنا الصراط المستقيم. إلهي واحد نجوها نونسا شتك قومن صراط كواحد لا وضد بلارنا حقافك. إلهي واحد نجوها نونسا شتك قومن oo qofka bini aadamka ay haduu jidka quman haleelo oo ah ka quraanka ba loo soo dajiyay quraanka ba waxa loo soo dajiyaa leeyri in hada alquraan yahdi lillati hiya aqwam tatoosan inuu inagu hanuuniyo adiguna ilaahay maalin kasta waxaad weydiisataa jidkaas in rabbi kugu sugo ihdina min alhidaayah waxay culimadu yiraahdaan hidaayadu quraanka waxay ugu timaadaa afar martabo oo kala dambeeya martabada koowaad waa martabada sabbih isma rabbika al'ala alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada وتصبح سدبالي لربك الذي خلق فسوى أبوري أبورك دمايستري تسويته وإتمام الخلقة والذي قدره فهدى إلها جانغويي هنونيي بالليل هنوننتنا وتمام التقدير بين هذا تمام التقدير كان وامحي تنوى هداية عام كاهو وحكستو إلهي أبوري إساقا بري عد كلمة برين وحكستو إلهي أبوري إساقا بري سيدو النولان لها سيدو وحو عوني لها سيدو وحو عبي لها سيدو يسد دفاعي لها سيدو النولان لها وحو والبا إلهي وكهنوني مثال بسيطة وحكو غفلا المهيري مركو أولا الشهر وقتين وحبري كرناي نغو ماها خبرد الدنيا دودن هدي لا isugu yeero oo la yiraahdo sida wax loo nuuga ilmo yaro hadda dhashay la baraya cidina ma bari karteen cid bari kari lahayd ilmaha yar sida wax loo nuuga ma jirto laakiin waa program ilmaha kane ilaahay baa ku program gareeyay sidoo uu noolaan lahaa sida awgeed markuu dhashaabo afka la daydeeya naaska hooyadii markuu la helana nuugis buu bilaabaya وأقون وكليمي أوركو هويدي وأقون ربي سيئ سبحانه وتعالى نوله أردمي مركها الدنيا دا شوغو أردمي سيدو النولان لها مد ولبو يقانا سيدو الترمي لها مد ولبو يقانا سيدو يسود دفاعي لها مد ولبو يقانا مد بعد دفاعي سو دقاليي مد بعد دفاعي سو السنيهي مد بعد دفاعي سو أرديهي مد بعد دفاعي سو قرمون يهي حيوان يرى مركا تابطو قرمون كسي دايا سمادرك والدفاع عيسي وقربا أغاقار كيسان لغتغو مركا مد والبا إلهي وحو بري سيدو النولان لهاي سود دفاع لهاي وطرمي لها تادت قردن بالي خلقي قردن با إلهي سي الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى نبي موسواك لها مرتبط الله بادو حويان ومرتبة ضدك إن حق إيا باطل كالله كلا شيغو ضدك إن ودد قمان لو تلمامو بسالدا ثقلين كاقارك كوأ وإنك لا تهدي إلى الصراط المستقيم وكإلهي النبي كولي شد قمان وكإلهي لي إن علينا للهدى وهديناه النجدين إنا هديناه السبيل kuwaasoo dhamme waa maxay waa hidaayatu biyaan bay yidhaahdaan culammadu waxa loo caddaynayaa jidka qaldan iyo jidka saxan laakiin
aadamaha badh baa isagoo jidka saxan iyo jidka qaldan kala garanaya ogaan haddana ka qaldan u mara waa kuwo kadeedan qof garanaya wuxuu inuu xun yahay oo haddana samaynaya waa kuwa aan adeegsanaynin ilaahay caqligu siiyey waa kuwa aan adeegsanaynin waxyigii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu soo dejiyey waana dad badan badan oo aan waalayna laakiin doqonnimo kala haysa waxaad ogtay inaad ku khasaarayso marka aad samaynayso haddii lagu weydiiyana aad odhanayso waa khasaare haddana aad samaynayso markaa miyir qabkaagu intuu leegi aad u malaynaysa laga yaabaa dadku inayna bini aadamku caqli u leeyahy oo caqliga ma adeegsanaa baa isweydiin leh caqliga miyaynu adeegsanaa tusaalayaal basiidaan idin siinaya dadka oo dhan dunida jooga waxaad weydiisaa sigaarku miyuu xun yahay mise u wanaagsan yahay dadka dunida jooga oo dhan dhakhaatiir leh ee aqoon-yahan leh ee kan leh haddaad weydiiso sigaarku miyuu xun yahay mise wuu wanaagsan yahay dhammaantood waxay ku odhanayaan way xun yahay markaase waxay tirinayaan dhibaatooyinkuu leeyahay markaase xataa nolosha caadiga dadku waa shay qurmuun bini aadamku qurmuunka ma jecla waa dab bini aadamku dabka ma jecla waa caafimaad darro bini aadamku caafimaad darrada ma jecla waa dhaqaala burbur bini aadamku dhaqaala burburka ma jecla isagoo intaa kule markaad aragtay isagoo cabaya markaa miyuu miyir qabaa mise u waayay maxay idan la tahay ya taa macnaheedu waxa weeyaan bini aadamku caqligan ku jiraa qaar buu iskaga jiraa ayaan waxba ku falaynin haddii adigoo arkaya wuxuu inuu xun yahay haddana aad samayso adoo arkaya inuu dhib yahay haddana aad samayso macnaheedu waxa weeyaan caqligaagii maad adeegsan waxyiga ilaahay kuu soo diray maad raacin noloshaada wixii wax ka bedelaya wax kumaad samaynin si awgeed baa ilaahay wuxuu ina leeyahay inna calayna lalhudaa baa ilaahay yidhi anigaa korkayga saaray baa ilaahay leeya inaan wax idiin caddeeyo wahadaynaahu najdayn labada jid baannu idinkala tusinnay baa ilaahay leeyahy innaa hadaynaahu sabiila imaa shaakiran wa imaa kafuura labada jid baan idiin kala tilmaamayaa baa ilaahay leeyahy adigu markaa ama ka gaaloobaya noqo ama ka ilaahay u mahadnaqaya qur-aanku mas'aladaana si fiican buu inoogu caddeeyey mas'alo saddexaad baa jirta oo taa ka sii dambaysa oo ah in ilaahay ku waafajiyo waxa wanaagsan waa waafajin xagga alle ka timi ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu kuugu gargaaro inuu ku waafajiyo ilaahay muxuu qur-aanku leeyahy والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم كوا هانونا با إلهي يلي كوا يجو جدك في عن مرة هوري أنا وأكر لنا با إلهي لي جدك في عن مرته إلهي سبحانه وتعالى وحب الله قادين وكوكر لي والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبل كوا كددالا جدك يجب إلهي يلي كددالا لنهدينهم سبلنا أنا نواكو هانونين أبا إلهي إلهي سبحانه يعني ووقو قرقارينا وكا قرقار كاكينو إلهي ويدي سالنا مركا نهورتا قلنا لنا اهدنا الصراط المستقيم دي جدك وينو هينا دوابة تكرينا نيكا تكرينا يا صوما هانون سنة سولو سيء وهانون سيء نيكا صلاة تكرينا أدقو صلاة دا كجرات هدنا واحد إلهي كدل بيسا إلهي يوكان يقو هاي أو igu taageer inaan jidkaaga kan maro waxaan rabaa aayadda ugu dambaysa ee suuradda maalin walba akhridaan inaan tilmaamo marka aayadda u dambaysa rabbi wuxuu ku tilmaamayaa taariikhda bini aadamkoo dhan oo kooban iyo tajribada aadanuhu leeyahay oo dhan oo kooban jidkan aynu ilaahay weydiisanayna inuu ina mariyo dadku saddex kooxood un bay yihiin jidkaa marka loo eego saddex kooxood oo qudha kooxi waa koox hanuunsan oo jidkaa qaaday waa koox isku dartay aqoon inay jidkii garanayaan
oo barteen haddaanad garanay haddaanad baranin dee ma mari kartid hargeysa haddaanad kala aqoonin soo anban maysidu yani waa inaad meesha garanaysaa marka hore mar labaadkana daa waa inaad u qasdido oo camalkii aad samaynaysaa kaasi waa mid qolo garanaysa laakiin ogaan u dhinac marta sida kaa aynu sheegaynay aynu ku tusaale qaadnay sigaarka iyo qaadka iyo waxaa la mid a isagoo garanaya inuu xun yahay buu haddana wadaa marka waxa weeyaan garashadiisii waxba umay tarin ee wuu dhinac maraya kooxda saddexaadna iyaga jahli baa derderay aqoon daraa derdertayoo waabay isleeyihiin waddo fiicanaa marteene waabaanay garanaynin waddada lafteedii baanay garanaynin aadanuhu taariikhdiisii laga soo bilaabay nebi aadam ilaa maalinta qiyaamahu dhici doonana saddexdaa gruubunbuu ahaanaya saddexdaa gruubna suuraddan qura aynu maalin kasta akhriyaynaa baa inoo caddaynaysaa ilaahay markaa wuxuu leeyahay waxaad tidhaahdaan ihdina asiraata almustaqiim ilow jidkii qumanaan ugu hanuuni siraata aladiina ancamta calayhim kuwii aad u nicmaysay jidkoodii kuwa loo nicmeeyey waa kuwe waa rusushii waa ambiyadii waa saalixiintii waa mu'miniintii dhabtahayd waa dadkii jidkaa maray ilow jidkii kuwaan ugu hanuuni ilaahay haddana waxaad ka magan gelaysaa hayri almaqduubi calayhim kuwii ilaahay u cadhooday jidkooda inaanu ku marin kuwa ilaahay u cadhooday waa kuwa xaqa garanaya ogaan u derderee dhinac mara qaybta saddexaadna waa waladaalliin waa kuwa iyagoo aslanba aan jidka garanina lumay su-aasha isweydiinta leh waxay tahay ducada maalin kastaa ku ducaysataan ma idinka dhabbaa anuu su-aashaasaan idin weydiinaya ducadaa maalin walba ku ducaysataan idinka dhab miyay tahy bal gacanta taaginta le waa iga dhab yaa rumaysay in ducadaasi dhab ka tahay okay waxbaan idin weydiinayaa markaa inay dhab tahay iyo inaanay dhab ahayn baynu hubinaynaa haddii lagu tilmaamo nebi maxamed wixii uu yeeli jiray calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisi iyo dadkii qumanaa lagu dhahaa saasay yeeli jireen saasay samayn jireen lagu tilmaamo mar labaadna maala waxaa lagu yidhi misaal basiitaan soo qabanaya waxaa lagu yidhi nebi maxamed saasuu u xiiran jiray markaasaa waxaa kaloo lagu yidhi maradonana saasuu xiidhaa idinka kiinan maxaa la ydhahaa iminka jooga ronaldo iyo missy baa lagu yidhi iyana saasaa u xirtaan labada kee baad maraysaa iya runaan isu sheegno hadda markaad salaada taagnayd waxaad lahayd ihdina siraata almustaqiima siraata aladiina ancamta calayhim ilaahow kuwii aad u nicmaysay jidkoodii na mari baad lahayd markaad salaadda taagnayd marka aad ka soo baxdo ilaahu jidka kuwa lumay na mari inaad tidhaahdaa miyay saxan tahay deefar waxaynu u baahnay inaynu caqliga dib u adeegsanin yacni inaynan noqonin kii lahaa sigaarku wuu xun yahay ee haddana cabbayey kii lahaa sigaarku waa xun yahay ee haddana cabbayey aynu leenahay kaasi caqliga muu adeegsan waxaa la mid ah qof kastoo ay u caddaatay wanaaggu wuxuu yahay oo haddana marka uu isagu wax samaynayo jidka kale maraya jidka saddexaad ee ah isagu daalliinta kaana dadka badh baa maraya oo waayo dee haddaad kaleba garan weydo maxaa ilaahay ina faray iyo maxaanu ina farin sow kii baadidaa mari maysid maxaad ku garanaysaa xaqa su-aal baan idin weydiinayaa iminka cilmaa dhigataan oo secondary school baa ku jirtaan oo dhowr iyo 10 sannadood baa wax soo dhiganayseen ka warrama haddii dhowr iyo 10kaa sannadood buug aad akhriyi jirto aanad waxba ka aqooni uu jiro miyay fiican tahay ya imsa qur-aanka tafsiirkiisa garanaysa imsa akhriyayse ii sheega ya
quraanku waa buug la fahmi karo kuwa la idin dhigo kaluun sida loo bartaaba loo bartaa wax caadi oo la fahmi karo bale waa loogu talagalay in la fahmo bale ilaahay wuxuu leeyahay walaqad yassarna alqur'aana lidhikri fahal min mudhakkir waanu fudaydinay baa ilaahay yidhi waanu fudaydinay laakiin mushkiladdu maxay ka jirtaa haddana dee xaggiisaba eegin farhungurida idinla weyn soo maaha waxaanaynu dhigannaa waa maxay kale odayadii soomaaliyeed hore waxay odhan jireen waa farhunguri farhunguridu waa maxay waa wax loogu talagalay in wax lagu cuno wax kale ku qabanaysaan markaa wax barataan soo ismeelidin ku shaqo taga haddaad dhakhtar noqoto iyo haddaad injineer noqoto iyo haddaad looyar noqoto iyo haddaad ka noqoto xoogsuun baad is leedahay socayka maaha jaamacaadka hadhow waxaa u dooran doontaan talow teebaa shaqo badan oo marka laga baxo markiiba shaqo la helaa ma wax kale ku kala doorataan ya haddii laydin yidhaahdo maalan dhakhtarnimada maxaa dadku u jecel yihi waxay yidhahdaan labada shaqo ee dunida meel kastoo la tago aan la waayini waa macallinnimo iyo dhakhtarnimo mid baase la jecel yihi waayo maxaad uga jeceshay inaad dhakhtar noqoto inaad macallin noqoto way ka dhadharoon tahay ma wax kale ku jira yacni hunguriga uga fiicantay weeye waxaad sileedahay wax ka yaro badan macallinku intuu helo ayaad helaysaa baad sileedahay that's why dhakhtarnimada dadku ay ugu yaacayaan waayo markay hawl iyo dhib noqoto waa shaqooyinka ugu dhib badan waa shaqooyinka aanu qofku wakhti u seexdaba lahayn ee saqda dhexe lagu odhanaya mid baa sakaraade soo kac ee wakhti walba kadeedku uu qof ku jiro aan time go aan lahayn laakiin haddana dadku wuxuu wada jeceliya waa hunguriga maxaa sababtu tahay aynu tan u jeclaanay adduunku waa wax yar laakiin haddaad aakhiro ilowdo wixii adduunka lacag lagu helayuunbaa kula fiicnaanaya aakhira waxaa la yidhi waa nololaan dhammaad lahayn inaad dee 20kan sane hore ama 30kan sane hore inna waxbaad baranaysaa inna kariirkaagaad dhisaysaa waxaa laga yaabaa 20ka sane u dambeeya inaad shaqo fiican hesho 20kaa sannadood hunguriga ku soo gala miyaad aakhiro oo dhan siisanaysaa se 20kaa sannadood intaad u diyaargaroobaysay in leeg aakhiro ma u diyaargarowday 20kan sane waxaad ugu diyaargaroobaysaa 20 waxbarasho aad soo martay ayaa waxaad u sii baranaysaa inaad 20ka dambe ku xoogsato markaa 20 baad 20 siisata aakhira maxaad siisatay iyada mise iyada waa xoolo bilaasha maxay dalata aakhira miyaa la iska galaa u jannada hadda aakhira waxa uu nebigu ku tilmaamay adduunkan aynu ku noolahay oo dhan universekan oo dhan tobanlaabkii ayuu leeyahay ninka jannada ugu boos yari waa ka ugu booska yar leh maaha ka boosaska waaweyn leh haddii intaa in leeg uu leeyahay ka u booska yar leh adigu meesha intaa leegba waxaad ku raadinaysaa inaad bilaash ku hesho si adduunka inaad 20 sano beriis hesho ma 20 sanaad u bixinaysaa 20 baad u bixinaysaa taana bilaash baad ku doonaysaa haddaad qur-aanka fahamtaan macnaheedu waxa weeyaan caqligaagaa kuu dhismaya caqligaagaad si fiican u adeegsanaysa waxa ilaahay ku faray baad si wanaagsan u fahmaysa adduunkan kuma lihi seexo ee waxbaro oo xoogso waa lagu faray bilaash ma jiro laakiin aakhirana ku talagala waxaan ku soo koobayaa uun cadceed baa fadhidaan oo idinkan buwaagtii kor wada taagaya waxaan idinku soo koobayaa waxa ilaahay maalin walba weydiisataan ihdina siraata almustaqiima siraata aladiina ancamta calayhim hayra almaqduubi calayhim wala daaliin ka run sheega oo dee nin waalan baad noqonaysaa haddaad markaad halkan joogtana ilaahay weydiisato dabadda markaad u baxdana aad tidhaha ilaahu ma rabo markaad masaajid ku jirta ama salaada ku jirtana ilaahayow intaas dhul dhigto aad tidhaha kan baan doonaya markaad dabadda uga baxdana aad tidhaahda yeelkii waxba kama rabo waa wax aada u qaldan taa macnaheed waxa weeyaan inaynu isku dayno nolosha inaynu toosnaanno
noloshu realitigeedu waa toosnida cayaartu waxba ma tarto iyo waddo qaldanoo amartaan waxba ma tarto iminkana dunida dadka lumiya tiro batay dadka lumiya ayaa tiro batay oo la talmiiciyaa la qurxiyaa oo la buunbuuniyaa oo tviyada iyo raadiyoyada iyo bahlada yarare aad daawataan iyo waxaan ka soo baxaa dadka wanaagga u sheega xataa wanaag adduun ha ahaado su-aal baan idin weydiinaya tviyada iyo waxaad daawataan imisaa aqoon-yahanada dunida ku aragtaan oo ka soo baxaya dunidu soo aqoon-yahana ma leh ka kaalayba diin aqoon-yahan wax kala yaqaanoo tiro badan sooma leh imisaa ka soo baxa waa naadir inaad aragto dadka waalanse imisaa ka soo baxa imise dhan xiiran imise heesaya imise buuqaya imise kubadda eryaya mise bahalkuba qoladaas u samaysan yihin yacni waxaad arkaysaa dunidu dhanka ay ka raran tahay diinoo qura kama hadlayno wax allaaliya wixii bini aadamka wax tarayey waa very rare inaad aragto wuu yariyey xataa tv-ga iyo internetka ku jirtaan iyo waxaa ku arki maysaan waxaa ku badan wax allaaliya wixii dadka luminayey laakiin waxaan idin leeyahay dee maanna waa leediin caqliya qur-aanna waa haysataan inaa ambataan waa ceeb markaa labadaa adoo haysta inaad ambataa waa ceeb waxaan ku soo koobayaa ilaahay waxaan ka rajaynayaa kuwa markay ilaahay hortaagayiin waxay weydiisanayaan marka dambe aan beeninayn inaynu noqonno waar aamiin dhaha kuwa ilaahay waxay weydiistaan ay dhab ka tahay ee raadinaya